السلام عليكم. way ku qosleen macallinkii markuu khalday xisaab ku qornayd samuuradda, laakiin markay micnaha u taagan tahay ogaadeen wax ay ku hadlaan ayay garan waayeen. waxaan idiin soo gudbinayaa maanta qiso gaaban laakiin cibro qurux badan ku jirto. waxaa bartiisa facebooka ku faafiyey qoraal nin lagu magacaabo Oliver Green, qiso uu la kulmay yaraantiisii isaga iyo macallinkiisii u dhigayay galaaska kaasoo lagu magacaabi jiray Carol. qisadaasoo u eg inuu cashir uusan weligii iloobin ka bartay isaga iyo ardaydii kale ee fasalka markuu macallinkii samuuradda ku qoray 9 lagu dhuftay 1 waa 7, 9 lagu dhuftay 2 waa 18, 9 lagu dhuftay 3 waa 27, wuxuuna waday ilaa uu ka gaarsiiyey 9 lagu dhuftay 10 waa 9. wuxuu leeyahay Oliver, markuu macallinkii dhammeeyey waan ku wada qosolnay dhammaan sababtoo ah jawaabta koobaad ayaa khalad ah, laakiin macallinku wuxuu u sheegay inuu u qoray si kas ah si ay ardaydiisu u bartaan arrin muhiim ah way la kulmi doonaan maalin maalmaha ka mid ah. wuxuu yidhi macallinkii, waxaan qoray 9 jawaabood oo sax ah, cid mooraal isiisayna ma jirto, waxaadna dhammaantiinna isku raacdeen hal xabo oo khalad ah, isagoo ugu sii daray caalamku aad idinkuma qadarinayo waxyaabaha fiican eed samaynaysaan, laakiin khaladka koobaad eed gashaan ayuu ka falcelin doonaa. sidaa darteed markaad marxalado noocan oo kale ah la kulantaan waa inaad ku aqbashaan fahan dheer oo yaysan idin saamayn hadallada yaryari, laakiin waa in ay cashir ku noqoto. Oliver wuxuu leeyahay, waxaa shaqadii iga cayriyey maamulihii shaqada isagoo ka shaqaynayay cunto kaliya markuu si aan kas ahayn u jabiyey alaab miiska saarnayd. wuxuu yidhi maamulaha intaas ayaa ugu filnayd in uu shaqada oo dhan iga cayriyo. markuu albaabka ka sii baxayay isagoo murugaysan ayuu xasuustay odhaahdii macallinkiisii, taasoo ka dhigtay inuu dhool caddeeyo jidkiisana sii wato sababtoo ah waa xaaladda adduunka oo dhan. Oliver waxaa u caddaatay in waanada macallinkiisu waana dhab ah yahay, loona baahan yahay dhammaanteen in aan ku wada dhaqanno wanaag samee adigoon cidna waxba abaalmarin ka sugin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.